kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan kaga hadlayno dhaqanka Soomaalida iyo guurka ajnabiga. barnaamijka maanta wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. waxaa marti inoogu ah Cabdullaahi Diiriye Kooshin oo ah qabiir Soomaaliyeed qurbana ku noolaa in muddo ah. Cabdullaahi Diiriye wuxuu qurbaha aaday 1968 wuxuuna dib ugu soo laabtay muddo 20 sano kadib. barnaamij dheer oo ku saabsan guurka ajnabiga ah iyo dhibaatooyinka uu kala kulmay qurbaha ayaan ka falaqeyn doonaa. waxaan dhanka kale ku hogaal tusaaleynaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool waxyaabaha danta ugu jirta iyo waxyaabaha wanaagsan. inta badan barnaamijkan wuxuu ka hadli doonaa dhaqanka Soomaaliyeed in lagu dhagnaado iyo muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada soo koraysa in ay guursadaan gabdha isku dal ay yihiin ama dhaqankooda la wadaaga. Cabdullaahi Diiriye ku soo dhaw barnaamijka Universal TV. magacaygu Cabdullaahi Diiriye Kooshin waxaan ahay oday mataqaanaa Soomaaliya oo muddo badan ku noolaa dalka dibadiisa waliba mataqaanaa dalka Jarmalka 1968 baan dalka ka tagay 1986 dalkan ku soo noqday dalkayga baan ku soo noqday burburka dalka ku dhacayna kadibna mataqaanaa dib baan ugu soo noqday dalka Jarmalka. waxaan ahay ninka mataqaanaa Soomaaliyeed ee ku noolaa dalka Jarmalka ee nasiibkiisu mataqaanaa qadarku u ogolaaday inuu naag ajnabi u guursado carruurna ay u dhasho. dhibaatada mataqaanaa gabdhaha ajnabiga guurkoodu haddaan anigu ka warramo waxaa weeye mataqaanaa arrin aan sahlanayn. ilmuhu waa hooya iskale waa haddii reerka uu burburo ilmihii ninkii way ka tegayaan waayo xataa even hadday ay tahay naag muslina mataqaanaa oo diinta muslimka mataqaanaa u dhalatay haysatana ay tahay. sidaa awgeed anugu maanta Cabdullaahi ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool kulama taliyeen marna inay naag ajnabiga ay guursadaan sababtoo ah ilmaha ay dhaleen ayaa mustaqbalkoodu halis gali kara. waxaan kula talin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inay guursadaan ee walaalahooda waayo afkii iyo diintii iyo dhaqankii meesha yaala iyo dhaqankii xataa even inkastoo anigu aan raalli ka ahayn reerku inuu burburo Soomaali garan waayo reerka burburkiisa waa sun oo ilmahay sun u tahay. ilmuhu ma hadlaan laakiin way keediyaan mana iloobaan mataqaanaa waxa meesha ka dhaca. sida awgeed waxaan dhihi lahaa dhalinyaroy Soomaaliyey ka digtoonaada oo ka feejignaada dumarka ajnabiga ee aad guursanaysiin oo u noqdo oo guursada gabdhihiina Soomaaliyeed. ilmihiinni way waari oo in ka dhumi maayaan in kana fogaan maayaan aabe yaa markasta la leeyahay mataqaanaa waa aabihiin oo dhaqankiiba mataqaanaa meesha yaala. talabaad waxaan leeyahay waalidow ilmaha dhashaan haddaad qurbaha ku nooshiin meel kastaba jooge afka hooyo u gudbiyo oo bara waayo afka waa sumad oo wuxuu ku turjumayaa dhaqankii hooyo oo tusaale oo wuxuu u yahay inuu ruuxa ka yimid Soomaaliya oo Soomaali u yahay haddayna afka carruurta aqoonin oy koraan nin ajnabiga hadduu weydiiyo yara xagee ka timi u yidhaha Soomaali wal afka iyo mataqaanida sumadba ma liida see Soomaaliya ku tahay wey marka sidaa awgeed ilmaha mataqaanaa afka bara ilaahay ka cabsada mataqaanaa Soomaaliyey meel kasta joogtaan isku duubnaada oo unid yeesha oo mataqaanaa badbaadiye magaca aad wadatiin magacu waa xurmo inuu ku leeyahay mataqaanaa magacan Soomaali xurmo ayuu naga budan yahay Soomaaliga waa inaan isbadbaadinaa oo dhowrnaa dhaqankeena iyo magaceena meel kasta aan joogno oo ka tagnaa qabiilka iyo mataqaanaa xinifti iyo waxyaalahan madmadooda dhexdeena ku jira mataqaanaa Soomaaliya. taas ayaan anigu ku boorinaya in ku nawaaninaya mataqaanaa waan garanay. Cabdullaahi Diiriye waxaad ka mid ahayd dadkii qurbaha aaday muddo 50 sano ka hor marka loo eego taariikhda Soomaaliya. hadda waxaa lagu jiraa 2019 ayaa qurbaha aaday. waxaad calaf u yeelatay oo aad calmatay gabar Jarmal oo cadaan ah jacayl ayaad ku guursatay. maxay tahay marka sababta keenaysa in xilligan aad ka qoomamayso ama aad fariin aad u dirto dhalinyarada Soomaaliyeed oo aad leedahay ha guursanina qurbaha gabdhaha jooga ee ajnabiga ah? maxay tahay sababta? haddaan anigu runta ka sheega guurkaygii waa sidatan 76 oday baan ahay alxamdulillaah ilaahay ay nicmeeyay. 76 baan ku fakaray mataqaanaa inaan guursado marna kuma talamin kumana fakarin gabar ajnabi inaan guursado. gabar Soomaaliyeed baan mataqaanaa markasta qalbiga ku hayay. waqtiga anagaas waaga gabar Soomaaliyeed qurbaha oo ma soo bixi jirin waxay ahayd gabar karaamaysan oo sharaf leh dalkeeda baaqi ku ah. وعرفت كم هذا ما أعرف عود كميش كبدني قيميس وكل خشبي ميش كيري إن قيميس وكل ذهبي كورد الصومال قيمه هذا الذهب بوها
mayna soo bixi jirin haddaad milyan baan bixinayaa halay tusa tirahdaan maada arki jirin sidaa awgeed gabadhii Soomaaliyeed laajina waan ahayn oo gurub dadka ugu horeeyay isdhiibay baan ahayn sidaa awgeed ima suurtoomin calaf mataqaanaa maarta qadarkiina ima ogolaanin inaan gabar Soomaaliyeed guursado himiladii mataqaanaa iyo waxaan ka fikiray guurka ku saabsanaana waxay la noqotay haddii aan ka tanaasulo mataqaanaa meesha kaga tago inaan ahayn nin go'aan leh sidaa awgeed shalay iyo maanta weeye shalay gabar Soomaaliyeed baan ka hadlayo way suurtoobi weyso mataqaanaa guurkii ima hirgelin gabar Soomaaliyeed waxaan dib ugu soo noqday gabdhihii mataqaanaa ajnabiga ahaa oo waxaan rabay mataqaanaa maartay muxuu ahaay dhalinyaro lahaay badda inaan ka baxo oo dego mataqaanaa maartay reer yeesho gabadha saas ay igu soo gashay waana arrin mataqaanaa maartay ku saabsan xukunka eebi qadar saddex caruur ay dhali doontaa gabadhaas burburkii dalka mataqaanaa dalka ku soo noqonay reerka burburay doona hooyadeed baan isku dhacnay labada gabdhood bay keysada iga geysay aniguna mataqaanaa maartay muxuu ahaay arrintii baa ila xumaato mataqaanaa waan isku dhacnay sidaasan reerka uga tagay dabcan waa fudayd iyo talaxumadan waxaan u bixiyay qoys dumis iyo qaran dumis marka waxaa weeye wax kasta waa calaf laakiin hase yeeshee naagtu hadday ajnabi tahay labada dhaqan ay kala duwan yihiin weliba mataqaanaa qofku diintu ay kala duwan tahay dhibaatadeeda ay leedahay mataqaanaa maartay sidaa awgeed aanu marna mataqaanaa maanta kula talin maayo maanta nin wiil Soomaaliyeed inuu gabar ajnabi guursado waa inay mataqaanaa maartay xooga saaraan iimaansadana maartay gabdhahooda maartay Soomaaliyeed ee sharafta leh mataqaanaa maartay meel kasta ay joogaan mataqaanaa ubadku u dhali doonto haddii nin wiilka Soomaaliyeed calaf uu helo gabar Soomaaliyeed inuu guursado ubad u dhalaan waa nin nasiib leh maartay muxuu aniga iga nasiib badan ilmahaas waa in mataqaanaa maartay marka la beeraa oo lagu baraarujiyo dhaqankooda iyo afkooda iyo diintooda mataqaanaa maartay gabadhii aad guursatay ee calafka aad isku yeerateen ee Jarmalka ahayd iminka waxay ku nooshahay Jarmalka ilmahaadii waxay joogaan Jarmalka in xiriir intee la eegay inaga dhaxay hadda xilligan la joogo waa su'aal wanaagsan gabadhii iyo mataqaanaa maartay caruurtiiba mataqaanaa maanta Jarmal bay ku nool yihiin caruurtu way koreen waxbay barteen mataqaanaa maartay way shaqaystaan xiriirkana waa fiican yahay magaalada mataqaanaa maartay leeyahay intaan birgama u soo guurin waxaan deganaan jiray mataqaanaa lasta magaalada yiraahdo wiilku mataqaanaa 5 jeer iyo gabdhoona mid mar bay yimaadeen laakiin hadda ilmi daa mataqaanaa telefoonka ma ogiyo mataqaanaa maartay ismaana arag sida awgeed mataqaanaa maartay muxuu ahaay hase yeeshee mar kastaba mataqaanaa maartay muxuu ahaay meeshii kala duwanaashadu waxaa weeye ilmuhu dambi ma leh oo saqiir bay ahaayeen way koreen dhaqankii afkii environmentii iyo diintii bay mataqaanaa ku beermeen maartay iyo hooyadood mataqaanaa dabcan caruurtu waa hooyadii baa mataqaanaa maartay muxuu ahaay waxa kan u gudbisay caruurtu mataqaanaa maartay muxuu ahaay hooyada dhaqanka iyo diinta iyo afka iyo midabka maartay ay leedahay bay qaadanayaan maartay Soomaali garan marka sidaa awgeed mataqaanaa maartay muxuu ahaay ilmihii waxay noqdeen maartay ilmo ku biirmay dhaqankii mataqaanaa Jarmalka diintii maartay muxuu ahaay environmentii aidiyadii wixii oo dhan mataqaanaa maartay dad mataqaanaa maartay iga duwan nagana duwan oo Soomaali aan ahayn laakiin se mataqaanaa maartay adigu raad raax hadii la fiiriyo mataqaanaa aabahood ka soo jeeda dhulkaas maartay hadda marka fariinta guud ee dirayso waxa ay tahay in ubadka Soomaaliyeed maadaama qurbaha inta badan dadka ku nool ay yihiin dad 20 ilaa 30 sano inta u dhaxaysa u badan Koonfur Afrika aan joogno waxa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo dad ajnabi ah guursaday ama gabdho South African guursaday marka fariintaada aad dirayso kulli waxay ku godan tahay ama ay ku socotaa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka feejignaadaan guurka ajnabiga maadaama aad dhibaato kala soo kulantay iyo caqabado badan taasaan ugu mataqaanaa baaqaasan dirayaa dhalinyarada Soomaaliyeed wiilasha Soomaaliyeed khayr Allah siiyo waa u duceynayaa waliba waa inay ka feejignaadaan kana fogaadaan guurka ajnabiga walow ay tahay naag muslimna ma artay maxaa waayo wax kasta dhici kara haddii reerku burburo ilmihii hooyaa iska leh hooyay raacayaan dib dambena mataqaanaa maartay loo arki maayo mataqaanaa maartay maxaa caqabadana ka hor imaanay qofkaas anu ma oran karo 100% waa isku mid laakiin se mataqaanaa 0.001 arrintaas mataqaanaa maartay laga yaabo maartay inay ka duwan tahay laakiin sida majority 100% caruurtii reer hooyay raacayaan maartay aabana caruurtu mataqaanaa maartay uu lusgareyn doona maartay hadda waxaad ku nooshahay magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska Koonfur Afrika ayaa timid oo arrimo family ayaad u timid marka waxaad aragtay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed gabdha iyo wiilalba guursaday dad ajaanib ah marka ubadkooda halkee bay ku dambeyn doonaan ayaad is leedahay waa su'aal wanaagsan ilmaha noocaasa inagu Soomaali baanu nahay saraxadii maartay muxuu ahaay shacbiga Soomaaliyeed waa shacbi waa hal family waa ummad mataqaan waa shacbi maartay midabka iyo diinta iyo dhaqanka iyo afka iyo mataqaanaa maartay muxuu ahaay deegaanka maartay wadaaga
وشعبي متقنا شنتي قوس بالله وأما صدح متقنا سنة أنا وأنفيلا يا مارت محوها هاي انتوسيوني مارت محوها هاي قرابة حسي يا شيء متقنا مارت وشعب وحانونا هاي أمد أن ولي حب سيبنين وعشان بلنبالستا وحكت ما دير ديرته ويحب سيبته متقنا حاليا متمرفز ولي إنكم متقنا مارت ما نحب سيبني meel kastoo tagno waxa laga yaabaa mataqaana midabkeeda inaan qaadano sida awgeed waxa loo baahan yahay mujtamaca mataqaana meel kastaba uu joogo uu u tago waa inuu waaqic noqdaa kuna faanaa aaminaana mataqaana maarta dhaqankooda maarta oo ay ka feejignaadaan guurka ajnabiga ubadka ayay saameynaysaa oo saameyn kartaa mustaqbal ahaanna waxay ka fogaan doonaan mataqaana dhaqankii iyo diintii iyo afkii bay ka fogaan doonaan maarta waxa goorma ay kugu dhalatay inaad qurbaha ka soo noqoto oo wadankii Soomaaliya aad ku soo noqoto maxaa sababay qimaashiyahadii Soomaaliya inaad ku soo noqoto good question khayr Allah kusi horta haddaan runta ka sheego guurkayga gabadhii ii dhexday gabar wanaagsan bay ahayd oo dambi ma lahayn yani mataqaana weligaana iskumaana dhicin waana caddayn doonaa hase yeeshee waxa sababay inaan Soomaaliya ku soo noqdo waxay ahayd marka soo noqoshadaydii mataqaana maarta sodoga iyo sododay ay weelahayn eega betra la oran jiray 90 kilomitir rajin oo jiray mataqaana deganaayeen sabti kasta wana dul taagnaan jireen haddaan dhaano war maxaa mataqaana waana shaqaysanay maxaa dhacay maarta isku dhibaysan waxay dhigi jireen carruur kale ma lihin eega xariga laga furi jiray waagaan intaana maarta diinta mataqaana anigu aan maarta liiliga qabsanin kama qalwan jirin eega hase yeeshee markii ilaahay toobadda i waafajiyey yaanaanki waxaan ku yidhi walaalay waalidka marna nadayn maayaane markay noo yimaadaan xarigga yaan eyga laga furin taas ayaa koos dhalisay maarta muxuu ahay caburiskii iyo jawigii mataqaana maarta isbedelkiisii taasaa eygaasaa igu khasbay inaan mataqaana maarta dalkayga ku noqdo carruurtaydana badbaadiyo mataqaana okay waxaad sheegtay inaad wadankii ku noqotay waxaad degtay magaalada Muqdisho xaafadda Madiino markii aad Madiino degteen oo Soomaali aad dhex keentay gabadhaadii Jarmalkeeda cadaankeed Soomaalida maxay kala kulmeen oo malac cunsuriyay jiray adiga la markaa Jarmalka joogtay ma kala ku jirto wax cunsuriyada shacbiga Soomaaliyeed dadka ajnabiga way xurmeeyaan oo waad ogtihiin carruurteenu mataqaana maarta markay banaanka ku ciyaarayaan maarta ama dad qof ajnabi cad ay arkaan markay daba ordayaan waa gaal ay leeyihiin qof kasta oo Soomaaliya meesha maraya weligiis wuxuu oran jiray hana ceebeenina faraha ka qaada dadka ajnabiga maya wax caqabada lamayna kulmin mataqaana maarta kalaamana kulmin dalkeeni afkii bay baratay way shaqaysanaysay macallimad bay ahayd aqoon-yahaneed iskool Jarmal meesha ka furnaa Soomaali garan aad iyo aad baan maarta ay u jecleed u soo dhaweysay mataqaana dalka deegaankiisa maarta markii burburka wadanka dhacay oo aad ka laabateen waxaad ku noqoteen Jarmalka marka goorma ayaad kala tagteen gabadhii aad calafka isku yeelateen oo ilmaha ku haysay 1991 13 mataqaana maarta Luulyo ayaan gabadha maarta ka tagi doonaa markaan soo ceeroonay dalku uu burburay aan soo noqonay reerku mataqaana maarta muxuu ahay soddog iyo soddoodo guri saddex dabaq ay lahaayeen oo inay soo dhaweeyeen mataqaana maarta ayakan la degnay carruurtuna rajin kaleyn maarta markii hore ku dhasheen marka islaanta mataqaana soddooda waxay ahayd islaan Catholiga oo diintooda ku dhagan waxay bilowday labada gabdhood inay maarta gaariga intay ku ridato ay kaysada geyso taasaa sababtay mataqaana maarta inaan isku dhacno haddaan anigu ayada u jeediyo in hooyo anigu waxaan ahay maarta nin muslim ah waxaad carruurta kaysada iga geynaysaa waxay tiri oo igu jawaabtay war aamus bay tiri bililqi waxaad leedahay bililqi iyo xarbi ahli waxaan garanaynin baad mataqaana noo sheegaysaa xoolahoodii baad geysay Afrika Soomaali garan marka waliina waa daba socotaa maarta muxuu ahay talaxuma igu dhacdo maarta waa miir beelo maarta muxuu ahay waa iska dhaqaaqay mataqaana maarta maxaa marka kugu yaabadnaa oo adiga aad la kulantay ama dad Soomaaliyeed dhibaato qabsatay oo guurka ajnabiga ah hadi taada waaba aragnay maxaa kugu yaabadnaa oo kale oo aad la kulantay arintii aniga yani igu yaab ka badnayd waxay ahayd nin Soomaaliyeed oo nasiib u yeeshay naag muslima oo ka soo jeeday dalka mataqaana Masar ninka gabar bay u dhashay ninkii markay kala tageen gabadhii mataqaana maarta way qaadatay dib dambe mataqaana maarta muxuu ahay oo muus arag mar labaad buu mataqaana maarta dariiqii raacay oo gabar haddana Masar maarta muxuu ahay Masar ka soo jeeda ayuu guursaday intuu talaabada qaadin baan anigu waxaan kula taliyay walaalow saaxiibow
ha ku noqonin dariiqii gabar Soomaaliyeed raadso naagtan ajnabiga ee gabadhaadi ka qaadatay tanna sidoo kale maartay ay noqon doontaa ka waantoobo iska daa uu diiday naag kale soo guursado islaayaka laba wiilba mataanay u dhashay dhowr sano kadibna mataqaana maartay way ka dhagaaqday caruurtiina way qaadatay maartay hoga tusaaleen barnaamijkan waxaan kaga hadlaynaa waa tusaaleen iyo fariin aan u direyno dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ee damaaciga kaga jira inay guursadaan ajnabi marka fariinta guud anagoo soo gabagabeynayno maxay tahay oo aad u direyso Soomaaliya ordo wax kasta ee baa xukunka haya asaga koonkan abuuray asagana abuuray wax kastana waa qadar wiil kasta Soomaaliya meel kasta ha ku noolaaday wixii matqana ee u qoray uu heli gabar Soomaaliyeed meel kasta ha joogtay calaf haduu u yeesho ilaahay matqana maartay uu saaro uu guursado ha hanto intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku wareysanay Cabdullaahi Diiriye Kooshin oo ahaa qabiir Soomaaliyeed qurbahana ku noolaa muddo ka badan 50 sano inkastoo uu qurbaha kala kulmay caqabado haddana waxa uu in badan hami ka qabaa wadankiisa Soomaaliyeed inuu mar un hagaago talana u soo jeedinaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa inay ka feejigtoonaadaan guurka ajnabiga wuxuu dhanka kale fariin u diray muwaadiniinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ku midoobaan midnimada ummadda Soomaaliyeed maadaama aanay haysano wadan qani ah aad ayaan kaga mahadcelinayaa Cabdullaahi Diiriye Kooshin